Asalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiiseeya Konami ama eFootball meel walba adduun weynaha ka joogtaan ku soo dhawaada boqol cusub halkaad iga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer qofka idinla hadlayana waa saaxiibkiin waa walaalkiin Yaki Boy Gamer ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay maxaa isniinta la keeni doonaa wax walba maalinta isniinta la filayo in markaas la keeno ayaan kula wadaagi doonaa intaan muuqaalkeen gudaha u sii galin please waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto channelkan aad subscribe dhahdo dambalada aad furato si muuqaal walbo aan soo dhigo uu ku soo gaaro aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay intaan oo subscribe ayaa haysanaa 5,000 wax 100 qof kadar ayaa inooga harsan please haddii aadan weli subscribe inoo saarin subscribe inoo saar aad ayaa u mahadsantiin laba maalin wax muuqaal ma aanan soo dhigin arrimo kale ayaan ku mashquulay aad iyo aad ayaan karaali gelinayaa okay wax walbo maalinka isniinta ah la keeni doono aan markaasi isla falanqeyn doona ama isla arki doonaa maxaa maalinta isniinta ah la keeni doonaa bisha labaad waxaa imaan doono update versionkiisu yahay 4.3.0 updatekaas ayaa imaan doona dhalinyaro waxyaabo badan ayaa gameka laga bedeli doonaa la socda aan usoo laabano mawduuceena maxaa maalinka isniinta ah la keeni doonaa maalinka isniinta ah waxaa la keeni doonaa IBXkan oo la yiraahdo English League IBXkan hadeer halka ugu jeedaan ayaa la leeyahay maalinka isniinta ah waa la keeni doonaa sidoo kale IBXka haddii aan markaasi mid aan idinku kala sheego Steven Gerrard iyo ninka Shiineeska ah iyo Wilshere saddexdan ayaa markaasi la leeyahay maalinka isniinta ah waa la keeni doonaa haddii markaasi ratingkooda isla fiirino waxaan ku bilaabeynaa Steven Gerrard wuxuu ku imaan doonaa 86 wuxuuna gaarayaa 100 ilaa 104 waana marka double booster ka dhigto sidoo kale ninkan la yiraahdo Jack Wilshere asagana wuxuu ku imaan doonaa 84 ilaa 98 ayuu gaarayaa ilaa 102 marka booster ugu darto sidoo kale ninkan la yiraahdo Shiineeskan asigana wuxuu gaarayaa 84 ayuu ku bilaabanayaa 98 ilaa 102 ayuu gaarayaa inta aan hadda ku sheegay saddexdooda haddii aan kula wadaago Steven Gerrard meesha ugu beer uu gaarayo waa 105 marka double booster ka dhigto Jack Wilshere asigana wuxuu gaarayaa 103 marka double booster ugu darto ninkan kale oo la yiraahdo Shiineeskana oo indheerta ah oo Manchester United u ciyaaro asigana wuxuu gaari doonaa 103 haddaba saddexdeeda midka ugu ratingka badan waa Steven Gerrard waa midka ugu fiican ugu ratingka badan ugu adag waa Steven Gerrard saddexdan kalaba dhacal laakiinse Steven Gerrard ayaa markaasi dab iyo hula ah oo cabsi ah raggaas markii la keeno raggan baa la keeni doonaa oo u wareeyay Szoboszlai iyo raggan kale halka ugu jeedaan ayaa markaasi la keeni doonaa IBXkaas markii la keeno waayahay IBXkaas waxaa jirto IBX kale oo markaasi ayagana boqolkiiba 50 ah in la keenina iska macquul tahay in la keenina iska macquul tahay ayaan idinla wadaagi doonaa IBXkan waxaa la yiraahdaa European Clubs Champions IBXkan ayaa la keeni doonaa haddii ay macquul noqoto maalinka isniinta ah waxaan u horeeyo Cristiano Ronaldo oo double booster Busquets oo asigana double booster Steven Gerrard oo asigana markaasi double booster ayaa la keeni doonaa ayaa leeyahay maalinka isniinta sidoo kale Steven Gerrard waa midka ugu fiican IBXka isniinta la keeni doono informationkiisa hadda halka ugu jeedaan intaas oo boos ayuu ciyaaraa waa ka informationkiisa haddii aad tradingka qaabkan u siisana wuxuu gaarayaa 105 ayuu gaarayaa intaas ayaan jeclaystay inaan markaasi idinla wadaago please waxaan idin codsanayaa inaad muuqaalkan like sartaan channelkan aad subscribe dhahdaan dambalelkana aad furataan si muuqaal walbo aan soo dhigo idin soo gaaro